Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Xukuumadda Hirshabelle ayaa degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabatay tababarka ergada doorashada haweenka ee ku saabsan hogaaminta, waxaana ka soo qayb galay ururada haweenka ee ku nool degmada Maadai iyo nawaaxigeeda, iyadoona la barayay tababar ku saabsan arrimaha doorashada, iyadoona tababarkan mas'uuliyiinta bixinaysay ay si qoto dheer u fahansiiyeen haweenkii ka soo qayb galay tababarkan, iyadoona la filayo in dhowaan ay bilaabato doorashada golaha deegaanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana la filayo in haweenka kaalin weyn ay ka qaataan maadaama Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Xukuumadda Hirshabelle ay ka go'an tahay ilaalinta qoondada haweenka ee boqolkiiba 30. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Warbaahinta Wararka ee Jowhar Media, degmada Maadai, Shabeellaha Dhexe.